بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ maantiin buu kusoo dhawaada kulan kale iyo taxanaheennii buug wadaag dunida ma jira nidaam la isku waafaqsan yahay oo tahay dawladuhu inay isku maamulaan waa maxay xiriirka ka dhaxeeya dawladnimada iyo dhaqanada bulshooyinku dalka China 30 sano u dambeeyay horumarka baaxadda leh uu sameeyay maxaa sal waxa maxayse tahay qorshaha uu ku wajahayo mustaqbalka dhow dawladda iyo dalka China sidee u arkaan xuquuqda bini'aadamka iyo dimuqraadiyadda weydiimahaas iyo warcelinahoodu waxay ku duugan yihiin buugga loo yaqaano The China Wave hirka China A Rise of Civilizational State soo bixida ama kobaca dawlad xadaaradeed waa buug uu qoray Professor Sheng Weiwei Professor Sheng Weiwei wuxuu ka tirsan yahay jaamacadda Fudan University oo uu wax ka baro culumta la xiriirka caalamiga ah wuxuu la soo shaqeeyay madaxweynaha dalka China 30 sano u dambeeyay horumarka weyn ee uu gaaray salka u dhigay Deng Xiaoping oo uu ahaa markaa turjumaan ama haltabiye afka Ingiriisiga wuxuu ka warramaya marka ugu horeysa oo uu soo bandhigayaa buugani in China uu gaaray horumar aan bini'aadamku qiyaasi karin ama aan ku talagalin oo lama filaan aha waa buug la qoray 2011 markii hore waxa lagu qoray afka China markii dambena wuxuu u haltabiyay afka Ingiriisiga ujeedadana waxay ahayd oo uu leeyahay qoraagu dantan kala waxay ahayd horumarka baaxadda weyn leh ee bini'aadamka iyo dunida uu China ku soo kordhiyay 30 sano u dambeeyay kaasoo gaaray markaas buu leeyahay 300 oo sano wax ku qaatay Yurub iyo Mareykan inay gaaraan in 30 sano China ku keeno in wax laga baran karo isla markaana tusaale laga dhigan karo marka ugu horeysa wuxuu ka hadlayaa leeyahay China markaynu ka fikirayno waa inaan ka fikirin dal caadi ah waa inaan ka fikirno 5 meelood adduunka marka loo qeybiyo meel kamid ah in China ay tahay dawladnimada China inaanay ahayn wax fudud oo ay tahay wax ka badan 1 bilyan oo qof meel loogu talinayo sida awgeed buu leeyahay dawladnimada iyo isbedelka uu China keenay isagoo marka horeba dal caadi aan ahayn buu isbedelkaasina yahay midaan caadi ahayn wuxuu ka warramayaa horumarka weyn ee China sameeyay iyo meelo badan oo kaga horeeya dalalka Mareykanka iyo reer galbeedka guud ahaan Yurub iyo Mareykankaba wuxuu ka warramayaa oo uu leeyahay tusaale ahaan kaabayaasha dhaqaalaha sidoo ugu horeeyo tareenada madaarada iyo arrimaha kale ee kaabayaasha dhaqaalaha la xiriira wuxuu ka warramayaa bini'aadamka iyo noloshooda oo tusaale ahaan wuxuu leeyahay qofka Chinese-ka ah uu ka cimri dheer yahay qofka reer Mareykan iyo dawlado badan oo Yurub kamid ah wuxuu leeyahay qofka reer China waa suurtagal isagoo 50 jir gaarin inuu laba guri yeelan karo laakiin dalal badan oo Yurub kamid ah wuxuu leeyahay waa adag tahay in la helo wuxuu ka warramayaa oo uu ka sheekeynayaa 2011 Obama markii uu ka hadlayay khudbadii golayaasha qaranka wuxuu leeyahay suurtagal ma aha in China uu yeesho tareenka adduunka ugu dheereeya wuxuu leeyahay taasi waxay astaan u tahay muujinaysaa sida China meelo badan oo taasi ay kamid tahay uu uga horeeyo dalalka reer galbeedka ee xadaarada weyn sheeganaya laakiin buu leeyahay haddana muddo yar oo kooban isagu markaasi uu ku keenay xadaaradaas wuxuu ka warramayaa oo aad u xiiso badan waa maxay farqiga u dhaxeeya civilizational state dawlad xadaaradeed iyo nation state dawlad qaran wuxuu leeyahay China ma aha dawlad qaran laakiin waa dawlad xadaaradeed waxay leedahay buu leeyahay taariikh guun oo weyn wuxuu leeyahay dalalka China iyo Mareykan waxay ku abtirsanayaan 300-400 sanadood laakiin China wuxuu sheeganayaa xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dhaqan soo jireen oo 3,000 sanadood gaaraya kaasoo markaa koboc iyo horumar iyo dhaqan la isu soo dhiibay in nidaam ismaamul oo aad u guun uu leeyahay wuxuu leeyahay hadii dawladda islaamka oo kale iyo xadaaradda islaamka ay jir lahayd iyaga maanta iyaguna noqon lahaa sida China oo kale civilizational state ama Persian oo kale hadii ay jir lahayd waxyaalaha kale xiisaha leh ee uu Professor Sheng Weiwei uu buugga kaga hadlayo waxa kamid ah horumarka baaxadda weyn ee 30 sano u dambeeyay uu China sameeyay muxuu yahay modelka ama qaabka uu qaatay maxay yihiin mabaadi'da uu ku taagan yahay wuxuu ka warramayaa inay kamid yihiin in muhiimad la siinayay ama nidaamka dawladda China uu muhiimadda siiyo nolosha bini'aadamka iyo inaanay dadku noqon dad faqri ku nool wuxuu ka warramayaa madaxweynaha uu la shaqeeyay Deng Xiaoping in uu 400 oo milyan oo bini'aadam uu ka saaray faqri wuxuu leeyahay taariikhda adduunka lama hayo horumar inta ka weyn ama baaxad inta la eeg dad ah oo faqriga laga saaray laakiin se wuxuu leeyahay madaxweynahaas uu isagu la shaqeynayay ee markaas halka uu dhigay dawladda China iyo nidaamkeeda cusub ku guuleystay waxyaalaha kale ee muhiimka u siinay waxa kamid ah buu leeyahay in markasta dawladnimada suuban China ay xoog saarayeen dawladnimada suuban salahan wuxuu soo qaadanaya leeyahay waxa dawladda China ay ka goonsan tahay dawladahan aynu garab dhiganay Yurub iyo Mareykan oo dhan tusaale ahaan buu leeyahay in qof dawlad u shaqeynaya imtixaan laga qaado 10 sanadood markii China uu waday hawsha caynkaas ah Mareykan iyo reer galbeed ay ka daba qaateen taana waxa qiray buu leeyahay aqoonyahanka iyo indheergaradka reer Mareykan waxyaalaha kale ee muhiimka ah wuxuu leeyahay modelka iyo horumarka uu ku gaaray China waxa weeye in xoog la saarayay deganaanshiyaha dalka iyo dadka wuxuu leeyahay China
waa dadka dalka adduunka ugu tirada badan leh, waa 5 meelood oo hal meel adduunka dadka ku nool ah. marka wuxuu leeyahay haddii ay dhacdo in ay kala tafaraaruqaan ama ay kala tagaan ama xasilooni darro ay meesha ka dhacdo, dhibaatada China iyo adduunka soo gaaraysaaba waa mid marka muhiimad weyn waxa la siinayay buu leeyahay in dadka la xasilooniyo. wuxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay tallaabo kasta oo nidaamka dawladeed uu qaadayo iyadana waxa sal u ahayd oo modelka qayb ka ahayd in wax walba aanu noqon hadal iyo aragti meel kale laga soo gudbiyo, laakiin wax practice based ah ama wax la fuliyay oo la eegay oo khaladkii ka soo baxay la saxay oo mar walbana maan kale la kaashanayo ayuu yahay. meelahaasina meelaha ku daray uu leeyahay ma aha nidaamka China iyo modelka China mid anaga reer Yurub iyo reer Mareykan ay noo yeedhinayaan, laakiin waa mid China iyo dadka Shiinuhu ay leeyihiin oo iyagu ay ikhtiraaceen oo dhaqankooda iyo hab nololeedkooda iyo sida ay isu maamulayaan ku taxalluqa. qaybaha kale ee buugga xiisaha leh waxaa ka mid ah qaybta uu kaga hadlayo qorshaha iyo dooda hadda China ka taagan ay tahay sidee baan u sii ilaalinaynaa horumarka iyo xawaaraha dhaqaale ee socda si 10 sano soo socda markaas sida la saadaalinayo uu China u noqdo hormuudka dhaqaalaha dunida. waxyaalaha ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxaa ka mid ah buu leeyahay oo principleska iyo aragtiyaha dawladnimada China ku shaqeynaysa waxaa ka mid ah buu leeyahay in lagu guuleysto qulubta iyo maskaxda dadka in la hanto. waxa taamarka kowka buu leeyahay in marka la ilaaliyo doonida dadka shacabka China. marka meelaha wuxuu kusoo gudbinayaa leeyahay dawladda iyo shacabka laguma ilaalinayo kaliya nidaam ay reer galbeed iyo Mareykanku ay soo gudbinayaan, laakiin waa in mar walba waxa qofka reer Shiina uu arkay inay sax tahay la qabto doonidiisana ay ku saleysnaato. wuxuu ka warramayaa uu leeyahay cilmi baadhis oo macad dalka Mareykanka ku yaala oo ka qabtay China baa la weydiiyay dadka intee in la eeg baad ku qanacsan tihiin dawladnimadiina. wuxuu sheegayaa boqolkiiba 70 in ka badan inay sheegayaan inay ku qanacsan yihiin, halka dalka Mareykanka boqolkiiba 30 wax ka yar ay ku qanacsan yihiin nidaamka dawladeed. marka u dambeysay waxyaalaha xiisaha loo ka hadlayo waxaa ka mid ah marka xuquuqda bini'aadamka iyo dimuqraadiyadda iyo sida China looga arkayo. marka dimuqraadiyadda uu ka hadlayo wuxuu leeyahay dimuqraadiyaddu principlekeeda guud ee la isla ogyahay waxa weeye in la ilaaliyo doonista dadka wuxuu leeyahay ama xisbi kaliya lagu ilaaliyo ama laba xisbi lagu ilaaliyo ama xisbi kaliya lagu ilaaliyo ama saddex xisbi lagu ilaaliyo ama xisbi la'aan bayaan lagu ilaalin, laakiin waa inay jirtaa buu leeyahay dawlad ilaalinaysa doonidii dadka. taas dimuqraadiyadda buu leeyahay, laakiin dimuqraadiyaddu ma noqonaysa buu leeyahay nidaamka reer galbeed intay iyagu dhaqankoodii iyo soo jireenkoodii ka soo dhex saareen ay sameysteen anfaca qasamaha buu leeyahay inuu China anfaco. waxaana lagu garanayaa buu leeyahay Afrika meelaha badan ee nidaamka dhaqada lagaga keenay ee aan fahamsanayn ee ay burburka iyo iyo xasilooni darrada uu horseeday. China wuxuu aaminsan yahay buu leeyahay doonista dadka iyo xuquuqda bini'aadamku leeyihiin waxa ugu horeeya inay tahay qofka bini'aadamka ah inaanu gaajo horta u dhimanin, qofka bini'aadamka ah inuu dhaqaale iyo nolol helo inta aanu helin doorasho iyo cid uu doorto iyo waxaas oo dhan. wuxuu leeyahay tan xoogga saarnay ee aan dhalinay taas bay ahayd. haddii laga hadlayo buu leeyahay marka xuquuqda aadamaha markuu ka hadlayo leeyahay dhaliilaha badan ee China saaran ee xuquuqda bini'aadamka la xiriira. wuxuu leeyahay xuquuqda bini'aadamka horta xuquuq bini'aadam oo la isla ogyahay laba shay baa jira. labada shay waa in aan qofka bini'aadamka la torture gareyn oo meel lagu xidhin oo la ilaalin, iyo in colaad ama waxa weeyaan nabad qof uu haysto aan colaad loogu bedelin. wuxuu leeyahay labadaas principle ba adduunka oo dhan la isla ogyahay, laakiin xuquuqda bini'aadamka ee kale reer galbeed iyo Mareykan baa keenay iyagoo wuxuu leeyahay laangaabka tira ahaan dunida populationka ku nool ma aha inay sameeyaan buu leeyahay standards iyo heerar wax lagu cabiro, laakiin meel loo dhan yahay oo golayaal lagu wada jiro waa in lagu wada sameeyo buu leeyahay aragtiyaha guud ee xuquuqda aadamaha laga hadlayo. wuxuu ka hadlayaa uu leeyahay haddii labada principle ama labada aragtiyood ee xuquuqda aadamaha ka hadlayna la isku waafaqsan yahay aynu eegno China Guantanamo Bay waa u leeyahay buu meel uu dadka ku cadibo 100,000 oo qof oo reer Ciraaqna sababta uu laayay kama jawaabi karo haddii xuquuqda aadamaha laga hadlayo. dalka Mareykan iyo reer Yurub ma garanayo buu leeyahay ilaa inta ay wadayaan inay anaga wax noo sheegaan, laakiin ma garanayo goorta wax naga baran doonaan. China wuxuu halka ku soo gaaray horumarka ku keenay wuxuu leeyahay waa in dhaqankiisii uu ilaashaday dunida wuxuu uga baahnaa oo eegay reer galbeed iyo reer Yurub iyo dunida kale wuxuu ka kororsan karay ka kororsaday isla markaana wax weeyaan principleska uu leeyahay uu ka duulay. taas baana horumar lagu gaari karaa buu leeyahay Mareykan iyo reer galbeedna waxa rajeynaya inay baraarugi doonaan oo China iyo isbedelada qiimaha badan oo sameynaya ka baran doonaan. waa buug runtii xiiso badan oo kula talin lahaa qof wal oo akhriyo kara inuu akhriyo. kulanka kan ku xiga inta aynu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa adduun wadaag.